haweenweynaha gobolka Sanaag oo maanta si wada jira warbaahinta ugu hadlay gudaha magaalada Ceerigaabo ayaa waxay ka hadleen guud ahaan nabadgelyada gobolka Sanaag waxaana ugu horreynba tilmaameen inay ka soo horjeedaan cid kasta oo ammaanka iyo xasiloonida gobolka Sanaag wax yeelaysa sidoo kale waxay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay gacan ku qabato cid kasta oo ammaanka khalkhal gelinaysa waxaana haweenkani ugu dambeyntii bulshada reer Sanaag ugu baaqeen inay meel uga soo wada jeestaan nabadgelyada iyo horumarka gobolka Sanaag annagu waxaanu berber taaganahay haddaanu haweenka nahay nabadda waxaanu taageeranaa nabadda waxaanu rabnaa horumar waxaanu rabnaa waxbarasho waxaanu u baahanahay annagu nabad dawladda iyo cid kasta oo nabadda ka shaqeynaysa culimo awdiinkana waxaanu la berber taaganahay nabadda waxa weeyaan annagu wax nabadgelyo aan waxaan ahayn diyaar uma nihiin haddaanu nahay haweenka iyo ubadkooda waxaanu diyaar u nahay nabadgelyada cid kasta oo nabadda carqaradaynaysa waxaan halkan uga dirayaa fariin waxaan leeyahay dalku waa nabad cid kasta oo nabadgelyada xumaynaysa waxaan leeyahay Allah ku soo hadeeyo ilaahay haydi soo hadeeyo nabadda inuu ku caanamaalaa nabadda inoo maxay haytay horumara nabadda inoo guul ah nabadda inoo maxay haytay hal la iska kaasho horumarka hal la iska kaashado waxa wanaagsan hal la iska reebo waxa xun ee carqaradaynaya Soomaaliland gobolku waa nabad wixii dhibaato wadana waxaanu leenahay dawladdu gacan biraha ku qabato lagu qabto wixii dan gaar ah leh laakiin gobolka Sanaag waa nabadgelyadaas aan xoojinayna haweenka haddaan nabadgelyo xoojinayna annaga dhibaataduna taabanaysa hadii dhibaato dhacdo dadka hanala ka qabto nabadgelyo xumada fidinaya oo le nabadgelyo xuma ka jirta hay'adaha naga xanibaya wax walba carqaladaynaya dawladda iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo guurtida wax walba waxaanu ka codsanaynaa inay naga qabtaan wixii carqalad nagu wada waxa weeyaan wixii nabadgelyada maxay khalkhal ku ridaya ama ka soo horjeeda anagu waanu ka soo horjeeda dumarka nahay gacmahan isaysana waa aragtaan dumarkii gobolka Sanaag haday urur yihiin haday guri jooga yihiin haday ay maxay iyo ubadkayga waxaan ka soo horjeednaa wixii nabadgelyada khalkhal ku ridaya mana ogolin dawladana waxaanu ka codsanaynaa inay gacan naga siiso oo gacan bira ku qabato wixii nabadgelyada khalkhal ku ridaya waa Yunis Sheekh Ahmed Universal TV Ceerigaabo.